maxaynu ku ognahay in Mustafa Cagjar madaxweynaha deegaanka Soomaalida Itoobiya uu u baqay kursigiisa 7 sano ayuu kursiga madaxweynaha deegaanka Soomaalida ku fadhiyaa Mustafa Cagjar waxaana ay kolkan u muuqataa in mucaaradka maqiiqan ee deegaanka Soomaalidu ay dhinac uga leexin doonaan maadaama uu durtaba galay ama uu la galay cagacdiid xasuuqa ay ciidamada liyu boolisku ka geysteen deegaanka Dacwaley oo ka tirsan degmada Xarshin ayaa soo dedejiyay gulufka siyaasadeed oo durba shalay wajigiisa laga dareemay haddaba khudbadii uu shalayto jeediyey waxaa ka muuqatay cadho badan oo uu ugu laab qaboojinayo ehelada ay ka dhinteen ciidamada lagu laayay Dacwaley ee liyu booliska wuxuuse kala masuugay in uu iyana tacsi u diro dadkii shacabka ahaa ee ku dhintay Dacwaley ee haddana ay guryahoodii dabka qabadsiiyeen ciidanka liyu boolisku waxa uu bilaabay si uu kursiga u sii xejisto dadka iyo deegaankana iskugu sii hayo in uu la kala shiro beelaha isku haybta ah ee hawdka degan isaga oo durtaba shir ka furay deegaanka Awaare shirkan oo ay dhowr qodob ka soo baxeen ayaa durtaba la kiciyay waxaase uu qorshaha koowaad ee madaxweyne Cagjar uu yahay in aan marnaba la maqal rabitaanka dadka deegaankaasi ee ah in ay helaan ismaamul madax bannaan iyo in ay noqdaan kuwo ay ku soo dhex dhuuntaan mucaaradkiisu madaxweyne Mustafa Cagjar oo shalay uun ku baaqayay nabad haddana waxa uu dhinaca kale ka wadaa abaabul xooggan iyada oo ay isa soo tarayaan afxumada xubnaha xukuumaddiisu kuwaas oo si ay mar kale u xalaashadaan dhiigga maatada durbaanka colaadeed tumaya waxa uu shacabka Dacwaley ku tilmaamayaa kooxo argagixiso ah mase aha ee waa xoolo dhaqato qarniyo deegaankan duleedka iyo caale ku noolaa si kastaba ha ahaatee madaxweyne Cagjar waxa uu u baqay kursigiisa iyo in uu deegaanka Soomaalidu ay laba u kala qaybsamaan waxaana suurtagal ah in Cagjar uu kaliya madaxweyne u noqdo wixii kor uga rogan iyo caale halka Dacwaley iyo wixii hoos ka soo xigaana ay noqdaan maamulka 12aad ee dowladda deegaanka Itoobiya